shirkii midowga musharaxiinta doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya uga socday magaalada Muqdisho shantii cisho aynu ka soo gudubnay ayaa maanta la soo gabagabeeyay hase ahaatee intii kulankaasi socday waxay kulamo gaargaar la qaateen culimada haweenka aqoonyahanka dhalinyarada ururada bulshada rayidka iyo shirgudoonka golayaasha baarlamaanka hase ahaatee gabagabadii shirkaasi waxaa lagaga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 18 qodob kaasi oo lagaga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo deganaanshaha dalka xilli uu dalku ku jiro xaalad kala guur shirka ayaa ujeedadiisu ahayd in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhici karto dalka Soomaaliya isla markaa ay u midoobaan musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada dalkaasi doorashada 2021 isla markaana waxay wada tashi la sameeyeen dhammaan darafyadaasi kala duwan ay kulamada la qaateen iyagoo si isku mid uga soo horjeesaday gudiyada doorashada ee dawladdu soo magacawday oo ay ku eedeeyeen inay ku jiraan shaqaale dawladeed iyo saraakiil ciidan sidaas darteed ay walaac ka muujiyeen sida ay dhexdhexaad u noqon karaan isla markaana kalsooni lagu qabi karo in doorasho loo siman yahay qabtaan waxaana musharaxiinta midoobay warmurtiyeedkooda maanta oo Khamiis ay soo saareen ku soo jeediyeen in la kala diro guud ahaanba gudiyada doorashada xildhibaanada baarlamaanka soo socda ee 2021 ee dawladda federaalka Soomaaliya soo magacawday iyo in gudida doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi loo madax banaaneeyo inuu soo magacaabo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo in xal laga gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah iyo qodobo kale go'aanada dhinaca maamulka doorashooyinka waxa uu lagu soo saaray in la kala diro dhammaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba gudiyadana lagu soo magacaabo wada tashi iyo wada ogol dhinacyada ay arrintaasi khusayso oo ka mid yihiin dowladda federaalka dowlad goboleedyada dalka iyo golaha midowga musharaxiinta maadaama aan magacaabistooda la waafajinin shuruucdii dalka labo in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi haatanna ka mid ah hoggaanka ugu sarreeya dalka isla markaasna ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland uu sharciyad buuxda u haysto inuu magacaabo xubnaha goboladaasi ku matalaya gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka iyo gudiyada xalinta khilaafaadka ee labada heer ee federaal waxa kaloo uu dalbanaya in doorashada xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda Soomaaliland lagu qabto teendada xerada ciidanka cirka ee Afisyoon iyadoo ay goobjoog ka ahaanayaan wakiilo ka socda musharaxiinta beesha caalamka booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga saddex goluhu waxa uu ka niyad jabsan yahay in dawladda federaalku ay ku fashilantay xaqiijinta himilooyinkii shacabka Soomaaliyeed ee qabashada doorasho hal cod hal qof ah waxa xubnaha goluhu markaa ay mustaqbalka iska saarayaan xaqiijinta doorashadaasi qof iyo cod ah in shacabka lagu soo celiyo awoodiisa 15 goluhu wuxuu isku raacay dhisidda guddiga badbaadinta doorashooyinka qaranka oo ay xubno ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka ah culimada haweenka iyo dhalinyarada si loo xaqiijiyo samabixinta dalka iyo qabashada doorashooyin heshiis lagu yahay si xilliga kala guurka xasiloonida amniga iyo midnimada dalka loo ilaaliyo goluhu wuxuu ugu baaqayaa madaxda dowladda federaalka inay ilaaliyaan xasiloonida dalka kana fogaadaan durbaan colaadeed iyo ficilada abuuri kara nacayb iyo xasarad 17 goluhu wuxuu ugu baaqayaa madaxda dowladda federaalka inay furaan saaxadda siyaasadeed ogolaadaanna xorriyadda saxaafadda iyo warbaahinta ee xorta ah oo ay ku jirto warbaahinta qaranku caburintana ka daayaan hoteelada lagu qabanayo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee la xiriira ololaha musharaxiinta 18 haddii dowladda federaalku ay qaado tallaabooyin doorasho oo aan heshiis lagu ahayn waxa uu goluhu cadeynayaa in isaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada uu ka shaqayn doono hanaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo si uusan u dhicin firaaq awoodeed iyo mid kasta
xamse khadar maxamed xamse xadaari gobonimo TV hargeysa.